Mareeyaha Cusub hay'adda horumarinta wadooyinka Somaliland Ibrahim Saciid Cilmi oo maanta qaar ka mid ah warfideenada kula hadlayay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu ka dareen cidii xilka madaxweyne Siraayo maalintii shalay uu magacaabay waxaana uu Mareeyaha Cusub uu sheegay inuu xilka madaxweynuhu magacaabay uu ku qancay markaasina ballan qaaday inuu xilkaasi madaxweynuhu magacaabay uu ka soo bixi doono Ibrahim Saciid Cilmi Mareeyaha Cusub hay'adda horumarinta wadooyinka Somaliland waa arrimahaasi ka hadlayana waxdaladiisii ka mid ahaa halkan maanta waxaan aad ugu mahadnaqayaa mahadda koowaad ee bayskale mahadda labaadna waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka waanan bogaadinayaa xilka uu magacaabay insha Allah waa xilaan ka soo baxayo waxaan leeyahay madaxweynaha ku maadsan tahay anigoo magaaladii Boorama jooga xilka halkaad iga soo dooratay insha Allah waxaan filayaa inaan ka soo bixi doono kartideedina aan leeyahay sidaad igu dooratay waxaad igu tuumaysana way igu jiraan insha Allah waan ku mahadnaqayaa hadalka inta dhaafin maayo xil wareejinta maalinta xil wareejinta u dhigan doonaaye maanta waxaan leeyahay madaxweyne waad maadsan tahay wad ku maadsan tahay xilkaadii magacawday waanan ka aqbalay Maxamed Xasan Shabir Somali News magaalada Boorama